wararka soo baxay ku dhow xidig reer Brazil Vini Jr. ayaa muujiyay go'aanadii ugu dambeeyay la xiriiray ciyaarahanka si buuxda uga yimaadeen tababar Alonso iyadoo wax fargelina toos ah ka iman maamulka Madrid. Vini ayaa si cad u muujiyay cariini jab kadib markii la bedelay kulankii Clasico labadii gool ka adkaadeen Barcelona ciyaar ka dhacday Santiago Bernabeu kulankii 10aad La Liga. si laga soo xigtay isla ilahaasi wadahadaladii lagu doonayay lagu kordhiyay heshiiska. Vini oo dhacay 2027 ayaa hakad galay taa oo ka dhalatay jawi xiisad leh oo u dhaxeeya labada dhinac. Saxafiga Mario ayaa sheegay in gudaha kooxda muranka taagnaa muddo dheer iyadoo ay jiraan laba dhinac kuwa dhaliilaya dabeecadaha iyo falcelinta Vini ee garoonka, kuwa difaacaya oo sheegay in ciyaaryahanku uu yahay mid muhiim u ah naadiga isla markaana uu leeyahay dareen ciyaareed aad u sareeya. kadib dhacdada El Clasico khilaafka ayaa u xiibsiibtay inuu noqdo mid toos ah u dhaxeeya Vini Alonso. ila wareedku wuxuu sheegayaa in arrintan ay saameyn ku yeelan karto mustaqbalka xidig Madrid haddii si degdeg ah loo xalin. haddii xaaladdu sii adkaato waxaa laga yaabaa in mustaqbalka Vini Madrid uu noqdo mid su'aal la iska weydiinayo gaar ahaan haddii aan dib loo bilaabin wadahadaladii heshiiska cusub iyadoo xalinaya khilaafka labada dhinac. waxaa la sugayaa war rasmi ah oo ka soo baxa dhinacyada, laakiin xaaladda hadda jirta waxay u muuqataa mid kulul oo baahsan ama u baahan xal siyaasadeed oo degdeg ah. dhinaca kale liigii hore kooxda Liverpool Jimmy Carragher ayaa si adag uga falceliyay guuldarada 3 gool laba kala kulmin kooxdiisa kooxda Brentford tawaxid guuldaradii afraad oo xiriir Premier League. Carragher wuxuu sheegay in xaaladda Liverpool hadda ay ka baxday heerkii caadiga isla markaana u egtahay mid qalalaas ah. Carragher wuxuu yiri haddii Brentford 4 gool xiriir lumiyaan waxaa la dhihi lahaa musiibo. marka koox haysta horyaalka sida Liverpool waxagaagan lacag badan geliso suuqa ay sida u dhacdo way ka dhigan tahay inaan galnay waqti qalalaase. wuxuu inta ku daray in kooxdu gudaha u baahan tahay xisaabin. su'aalo culus ay iska weydiin doonaa gudaha qolka labiska ciyaartooyda shaqaalaha tababarka iyo dadka maamulka sare. waxay eegayaan lacagta la geliyo kooxda iyo wax hadda bixinayaan si cad u muuqato mid ku filan. Carragher ayaa sidoo kale tilmaamay arrintan farsamo oo muhiim ah loo baahan yahay Arne Slot uu ka fiirsado. Liverpool waa inay dib u eegaan awoodda jireed iyo dheerarka kooxda, waayo hadda aniga aragtideedu uma muuqdaan kuwo isku filan. Liverpool ayaa haatan ku jirta xaalad liidata oo ka fog kooxda xilli hore ku tartamaysa horyaalka iyadoo cadaadis weyn uu saaran yahay tababaraha kooxda Arne Slot. dhinaca kale tababaraha kooxda Blueska ninka lagu magacaabo Enzo Maresca ayaa ka hadlay guuldaradii kooxdiisa soo gaartay Sunderland isagoo ugu baaqay ciyaartooydiisa inay muujiyaan joogteyn badan haddii ay doonayaan in tartanka ay ku sii jiraan. haddii aad rabto inaad sare joogto waa inaad lahaataa joogteyn. waxaan guulaysanay 4 kulan oo xiriir ah kulankii Sunderland waxaa heli weynay fursad aan ku muujin karno taa, laakiin markii aan dhibco luminay waxaan muujinay inaan joogteyn lahayn. in hal maalin heer sare gaarno maalintii xigta hoos u dhacno waxaa ka fiican inaan helno heer dhexe oo joogto ah in had iyo jeer u ciyaarno si isku mid ah. tababaraha Talyaaniga ayaa ku dooday in Chelsea ay horumar samaysay wadar ahaan tan iyo bilowga xilciyaareedka. marka loo eego waxaan bilowga sameynay waxaan qabaa in hadda si ka fiican u ciyaarno inkastoo kulankii Sabtida uusan noqon mid sida loo jeclaysan karo. guuldarada ka soo gaartay Sunderland ayaa shaki gelisay rajooyinka Chelsea ee ku saabsanaa inay ku sii nagaadaan heerka sare kala saraynta iyadoo Maresca uu si cad uga hadlay muhiimadda joogteynta si ay u noqdaan tartamayaal dhab ah. tababaraha City Pep ayaa sheegay in kooxdiisu weli qayb ka tahay tartanka BL-ka inkastoo ay hadda 6 dhibcood ka dambeeyaan hogaamiyaasha Arsenal. City gool ay waray guuldareysteen Aston Villa haddii taa soo afjartay 9 kulan xiriir ah oo aan laga badin tartamada oo dhan. dhinaca Arsenal ayaa adkaatay Palace taa oo sare u qaaday hogaanka miiskiisa. natiijada City ayaa gelisay booska shanaad iyagoo ka dambeeya Arsenal, Bournemouth, Tottenham, Sunderland hase yeeshee. laakiin Guardiola oo City ku hogaamiyay 6 horyaal 9 sano gudahood ayaa sheegay inaysan jirin wax argagax ah. waxaan isku dayi doonaa inaan fogaanta yareyno ayuu yiri Pep. Arsenal sanadii ugu dambeeyay waxay ahaayeen kuwo aad u adag. waxaan diirada saarayaa si aan uga hagaajin karno kooxda aan uga dhawaan karno iyaga. Bournemouth si fiican ay u ciyaareen sidoo kale kuwa kale innagana waxaan isku dayi doonaa inaan ciyaarno si wanaagsan. inkastoo guuldar ka soo gaartay Villa Park, City weli waxay aaminsan tahay in xilciyaareedku uu isbedeli karo marka waqtigu isbedelo halka in ka badan kala bar xilciyaareedka ay xarsan tahay. Guardiola wuxuu rumaysan yahay in joogteyn iyo horumarinta ciyaartooyda ay muhiim yihiin. tartanka horyaalka BL-ka ayaa hadda u muuqday mid ka mid ah kuwa ugu xisaab badan sanadii ugu dambeeyay iyo kooxo badan si xoog leh ay ku bilowdeen xilciyaareedka qodob badan kuwa ay ku soo jiitay.